when goorta someone qof or ama an animal xayawaan try uu isku dayo to steal inuu xado the honey malabka the bees shinnida attack way weeraraan and assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu welcome back soo dhawaada mar kale cashirkan waa lesson 33 cashirka 33 cashirka 33 waa sheeko gaaban a short story about the bees oo ku saabsan shinnida the bees shinnida halka xaba ee shinnida waxaa la yidhahdaa bee marka ay badan yihiinna bees shinni bees shinnida are hard working insects waxa weeye cayayaan oo markaasi si aad ah u shaqeeya bees are hard working insects waa cayayaan they live together in a hive they iyaga live waxay ku nool yihiin together si wada jir ah in a hive waxaa la yidhaahdaa guriga shinnida badanaa dad ayaa dhisa oo markaasi shinnida malabka ka gurta haddii aysan dad u dhisinna iyada ayaa markaa waxay raadsataa meelaha godka ah oo geedaha dushooda markaas ayay guri ka dhigataa meeshaas ayaa waxaa la yidhahdaa hive mararka qaarkoodna waxaa loo yaqaanaa beehive ama guriga shinnida sidan oo kale ayuu u egyahay midka ay dadka sameeyaan oo markaasi malabka laga gurto there is one queen bee in each hive there is waxaa jira one queen bee hal shinni oo boqorad ah in each hive guri kasta oo shinnida ay leedahay hal shinni oo weyn oo waxaa jirta oo boqorad u ah it is the largest bee waana shinnida ugu weyn it is the largest bee waa shinnida ugu weyn there are waxaa jira hundreds boqolaal of worker bees oo ah shinnida shaqaalaha ah worker waa shaqaale bees waa shinni there are waxaa jira hundreds boqolaal of worker bees oo ah shinnida shaqaalaha ah ama shinnida shaqaysa the worker bees shinnida shaqaysa fly waxa ay duushaa ama ay dulduushaa from one flower in ubax iyada oo ka duulaysa to another flower ubax kalena u duulaysa marka shinnida marka ay shaqaynayso maanta dhan ubax ayay ku degtaa kadibna dhicaanka ayay kasoo dhuuqdaa kadibna ubax kale ayay kusii degtaa dhicaanka ayay kasoo dhuuqdaa waxaa laga yaabaa tobannaan iyo tobannaan ubax inay isku marto kadibna markay caloosha dhicaankaasi macaan ee ubaxa ay ka buuxsato ayaa waxay kula noqotaa gurigeedii ama beehivekii meeshaas oo malabka ay ku samayso gathering iyada oo soo ururinaysa a sweet liquid dareere macaan sweet waa macaan liquid waa dareere ama wax jilicsan cold oo loogu yeedho ama loo yaqaano nectar waxaa la yidhaahdaa dhicaanka macaan oo ubaxa dhexdiisa ku jira kaas ayay shinnida soo dhuuqdaa the worker bee shinnida shaqaalaha ah fly waxa ay ka duushaa from one flower hal ubax to another flower ubax kale gathering iyada oo soo ururinaysa a sweet liquid dareere macaan cold oo loogu yeedho nectar when someone marka uu qof when goorta someone qof or ama an animal xayawaan try uu isku dayo to steal inuu xado the honey malabka the bees shinnida attack way weeraraan and the sting wayna qaniinaan qaniinyada cayayaanka waxaa loo yaqaanaa sting to protect si ay u difaacaan its honey malabkeeda when goorta someone qof or ama an animal xayawaan try uu isku dayo to steal inuu xado the honey malabka the bees shinnida attack way weeraraan and sting wayna qaniinaan to protect si ay u difaacaan its honey malabkeeda a person qof
who is a beekeeper kaas oo ah shinni ilaaliye ama shinni xanaaneeye. Beekeeper waxaa la yidhaahdaa qofka shinnida xanaanaysta oo malabka ka gurta. A person qofka who is kaasoo ah a beekeeper shinni xanaaneeye makes wuxuu sameeyaa wooden hives guryaha shinnida oo alwaax laga sameeyey ayuu wuxuu u sameeyaa for bees shinnida. Makes wuxuu sameeyaa wooden hives guryaha shinnida oo laga sameeyey alwaax for bees shinnida ayuu u sameeyaa. When the bees goorta ay shinnida finish dhammaystirto making samaynta the honey malabka, the beekeeper qofkaasi shinni xanaaneeyaha ah sells wuxuu iibiyaa the honey malabkii. When goorta the bees shinnida finish ay dhammayso making the honey malabka samayntiisa, the beekeeper shinni xanaaneeyaha sells wuxuu iibiyaa the honey malabka. Inta aynu cashirkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.